Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal dhammaan wadin salaam meel kasta aad joogtaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa haddaan waalid nahay in ubadkeena ilaalino oo ka warqabno. Lahadhow birta la keetay qof kasta maalin buu leeyahay. Marka hadda bacdiyan baa Sheekh Umar ka sheekeynaya idinla socodsiinaya marka socod wanaagsan. waalid haddaad tahay oo aad carruur leedahay ilmahaagu siday adduunkana kuu anfacaan aakharana kuu anfacaan ood aakharo meel wanaagsan u wada tagtaan والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء carruurtaada inaad jannada ku kulantaan cadaabna ka wada badbaadaan soo ma jeclid carruurtaada saad adduunka isugu weheshanaysaan aakhare inaad isugu weheshataan soo ma jeclid carruurtaadu markaad dhimato kadib inay kuu soo duceeyaan oo qabriga kugu anfacaan soo ma jeclid carruurtaadu aakhare inay kuu shafeecaan oo ilaahay kuula hadlaan soo ma jeclid carruurtaadu adduuniya aakharaba inay ku anfacaan soo ma rabtid allihii abuurtay ku xidh akhlaaqda u hagaaji qur-aanka bar daacada ku xidh tarbiyada u wanaaji meesha xunay carruurtaadu ku fasaadayaan kala carar adduunya waxay dooni ha ahaato ilaahumaad guryo iyo xoolo iyo hanti iyo kuraas iyo wax kastoo adduunyo la jecel yahay iyo quruxdeedu may meeshaa kuu taallo marba haddaad diintaada iyo aakhiradaadu khatar gasho iyo tarbiyada carruurtaadu nololi kuuma taallo carar meeshii kale kugu dhaanta aad qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi oo inoo sheegay dadka ay malaa'igtu oofsanayso in aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwa nafta ay malaa'igtu ka qaadaysa ayagoo naftooda dulmiyey waxay naftu laga qaadoy dhinteen ayaga oo khalad ku jira ayagoo diintoodii ka leexday iyagoo akhlaaqdoodii kharibantay ayagoo waajibaadkii dayacay ayay malaa'igtu tumida markaasay nafta ka qaadatay markaasaa waxaa lagu yidhi malaa'igtii baa ku dhahaysa markay nafta ka qaadayso fiima kuntum maxaad ku dhex sugnaydeen maxaad meeshan uga tegi weydeen maxaad dhulkan uga hijiroon weydeen haddaad diintiinni xorriyad u weydeen carruurtiinna tarbiyadooda xorriyad u weydeen akhlaaqdiinna xorriyad u weydeen maxaad uga tegi weydeen markaasaa waxay ku cudur daaranayaan kunna mustadcafiina waxaanu ahayn kuwa la daciifsado qaxooti baan ahayn awood maanan lahayn tabar maanan haynin markaasaa loo jawaaba waxaa la leeyahay alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahay soo ma ballaadhnayn ood u hijiraataan ood u qaxdaan maxaa halkan keliya idinku cidhiidhiyo dhulkii halkan uu ka dhigay ma dhulkii ilaahay baa soo cidhiidhiyamay meeshan meel dhaanta soo ma jirin haawey maxaa ku dhigay cudurdaarkaasi socon waa marka dad ilaahay wuxuu ka soo reebay mustadcafiin dhab ah oo meelay u cararaan lahayn oo meelay u hijiroodaan lahayn oo aan awood lahayn oon xeelad lahayn oo duruuf ay haysato xaqiiqo ilaahay ka garaabay inta kale warkoodii waa la diiday alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha qul yaa cibaadi aladiina aamanuu ina ardii waasica faiyaaya facbuduun mu'miniintiyow addoomadaydii i rumeeyow dhulkaygu waa ballaadhan yahaye aniga i caabuda buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala dhulkayga meeshaad cibaadadiinna ku gudan kartaan aada cudurdaar kuuma aha marka meeshana waxoogaa biila iga soo gelayay caydh baan ku qaadanayay shaqaa isu kay saarnayd waxoogaa nololaan ku haystay ilaahay agtiisa marmarsoodka ma aha laanna waa laga garowsan waaye markay yidhahdeen kunnaa mustadcafiina fiiha waa nala daciifsanayay allah umuusan garaabin sidaas daraaddeed ruuxa muslimkaa meesha diintiisa uusan xorriyad ugu haysanin carruurtiisa tarbiyadooda uusan xor u ahayn waajib waaye inuu ka cararo waajib waaye inuu ka qaxo
diintiisa iyo aakhiradiisa iyo ilmihiisa la badbaado. asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam markay maka ka qaxeen oy ka hijroodeen xoolahoodii baa yaallay, carruurtu waxaa yaallay, ehelkoodii iyo qaraabadoodii baa taallay, guryahoodii baa yaallay, nolol baa taallay. maka oo dhulka ilaahay meesha ugu fadli badan ee ugu khayr badan ah baa la yidhi ka hijrooda. waaroo maka see looga hijrooday? laanna diintii baa xorriyad loo waayay. soo maalit war ingiriisku ma maka, oo maraykanku ma maka, oo faransiisku ma maka? war maka ka hijrooda la yidhi goortii diinta xorriyad loogu waayay. maanta waxay maraysaa munaasabadda hadalka keenayna uu yahay waddamada reer galbeedka in fasaadkoodu uu gaadhay carruurta yaryarkee da'yarta ah in lagu anqariyo oo waxa ugu horreeye la baraya uu noqdo waxa la yidhaahdo akhlaaq xumo iyo waxa la yidhaahdo niman isqaba iyo dumar isqaba. carruurtii muslimiinta dhulkaa tagtay 30 sano, 22 sano, 40 sano kadib natiijada soo baxday waxay noqotay in yaroo ilaahay u naxariistay mooye natiijadu waxay noqotay 3 qaybood inay u qaybsamaan. qaybi waa carruur fasaaday, daroogo iyo gashay maandooriye, noqday cisaabaad, kooxo jaraa'imta iyo dhaca iyo dilka ka shaqeeya, xabsiyaday ka buuxaan. waddamada reer galbeedka xabsiyada carruurta gasha waxaa ugu badan carruurtii muslimiinta ama ku koray ama bannaanka laga geeyey. ayagiiba isdilayaan, isbaabi'inayaan, guruubba isu laynayaan. waa kooxa gaangiisa waay, xabsiyaday ka buuxaan. kooxda labaad iyo gruubka labaad, natiijada labaadi waxay tahay iyo fi'ada labaad, koox waxbarashadii asaasigeed ka gudubtay, jaamacado galay. jaamacadaha halkaa waxaa ku sugaya niman brofesorro ah, faylasuufiyiin ah, falsafadda ku takhasusay. ilmihii markuu halkaa tago horeyna diin uma aqoonin, waxba lama barin, waxba ma fahansanayn, ilaahay iyo adillada waxdaaniyadiisa lama barin. jaamacaddii markuu tegay rag timuhu ka buubeen oo faylasuufiyiin ah oo ku takhasusay bini aadamka sidii ilaahay loogu diri lahaa ayay ugu tegayaan. markaasaa markaaba dood waxaa la gelinayaa ilaahay jiritaankiisa i fahansii, itusoo itaabsii, isha ii qabadsii. aawa ilaahaad sheegayso itaabsii, aan uriyo. dareemayaasha shanta ah waxay qaban waayaan wax jira ma aha. ilaahay jiritaankiisa ayaad doodi gelaysaa. in badan oo ka mida waxay ku qancayaan inuusan ilaahay jirin, walciyaadu billaah. ilxaad. sidaas daraaddeed daraase mar dhow soo baxday waxay sheegaysaa carruurta muslimiinta ku koray reer galbeedka 25% inaysan ilaahay rumaysnayn. ودراسة أي سميين هيئات مسلم والرجال galbeedka ku nool إلهي مرة ما يسنا، آخرنا مرة ما يسنا، نبي مرة ما يسنا، كتاب سودك مرة ما يسنا، ملائكة وركدي إسكبدا. قيب كم إذا نال كاسي مرت. قيب تصدحات واحد نقطة قيب أخلاق ضد قيمتين وأخلاق دي لقى فساديين وصيد حيوانات كأكل أطقمة. أخلاق دي بني آدم كإلهي كوي قال يورن كن حسيبتي لكن وحي يورن هذا واحد بين زمن كي هوري كان كسي درن حالتنا وكسي درتي وحي لي أيدن محد كوجيت أيدن محد كوجيت إن دلهان تدعون ما يكون درستي وحي هورن ككعبين نقط وحي هورن يقرصين نقط فرتقول عرب وحاب الله بتي عرورتا يريركا الروضة لقيني ناس سريقا لقيني إن لغو التربية وحلا إلهذو ضمر إسعى شقي يويل الإسعى شقي
ingiriiska qax cusub baa hadda jira dadkii waa qaxayaan xataa iskuullada private ee gooni loo leeyahay khiyaar uma laha ilaa inay maadadaa dhigaan mooye gabadhii gabadh yar baa lagu xidhayaa waxaa leedahay cishqi jinsiyaa idinka dhexeeya wiilkii wiil baa lagu xidhayaa cishqi jinsiyaa idinka dhexeeya lesbian iyo gay iyo balaayaday sheegaan waxaasaa carruurtii oo yaryar lagu tarbiyaynaya waana manhaj waxbarasho oo lagu qasbay oon ciyaar ahayn kaftan ma aha khiyaarna ma lihid oo maxaad samayn karta waxaan la yaabay ninbaa wuxuu ii soo diray macallimad carruur yaryar nooca aan sheegaynay wax baraysaa waxay keentay sanam ilmo yar oo wiil ah iyo ilmo yar oo gabadh ah sanamkooda